shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya ayaa waxa uu ka furmay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta waxaana Soomaaliya uga qayb galaya wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ku sugan magaalada Dubai ayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxa uu uga warbixiyay shirkaasi waxyaabaha looga hadlay iyo qorshaha ay la tageen ka wasiirada Soomaali ahaan. waxa maanta shir baan iskugu nimi shirka waxa lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka waxa ka soo qayb galay madax badan oo Imaaraadka oo ka socota xagga dawladda iyo xagga baayac mushtarkaba annaga waxaan ku nimi 6 minister iyo minister ku xigeen wasiir ku xigeen iyo 20 ambassador qof oo kale baayac mushtar iyo dawladda bay iskugu jira waxaan ka wada hadalay sidii maalgashi Soomaaliya loogu sameyn lahaa labada wadan ay isku kaashan lahaayeen haddaba waan iskaashanaa waxaan iska kaashanaa xagga security-ga waxaan iska kaashanaa xagga dhaqanka waxaan iska kaashanaa xagga oo dadka Soomaalida halkan ku nool imikana waxaan rabnaa inaan sare u sii qaadno oo sidii kheyraadka wadankeena ku jira beeraha xoolaha kalluunka portska aan leenahay oo xeebaha aan leenahay looga ay u maalgelin lahaayeen airport cusub sidii xamar loogu dhisi lahaa sidii loo sameyn lahaa wadooyinka Kenya khudradda iyo waxa laga beero shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo Banaadir iyo Baaya Bakool sidii loo keeni lahaa suuqyada loona soo dibadda loogu soo saari lahaa waxaanu ka wada hadalay sidii dawladda looga caawin lahaa broadband-ka waxa la yiraahdo ICT da baanagtay information technology-ga oo dawladda loogu sameyn lahaa loogu habeyn lahaa waxaan ka wada hadalay wax muhiim ah oo labada wadan ba u muhiim ah waa diyaaradda Fly Dubai iyo Al Arabiya halkana waxaan rabaa waa laga shaqeynayaa sidoo heshiiska horaan uu galay oo labada waxa galay dawladood in labada aviation imikana waxa ku soo biiray kambaniyadii oo diyaara heshiiska hore aan galay wuxuu keenay inay Hargeysa ka soo duusho oo timaado Dubai imikana waxa weeye Muqdisho maybe marka ku xigtana noqoto Kismaayo iyo Baydhabo iyo Boosaaso